قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. kusoo dhawaada warka galcad media news. qodobada warkayna ugu weyn waxa ay yihiin xog dowladda federaalka oo doonaysa inay lacagayso xildhibaano ahlu sunna ah cabsi darteed, gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe iyo mas'uuliyiin kale oo qarax miino lagu dilay, al-shabaab oo sheegatay lacago soko inay u qaybiyeen qoysas ku nool muqdisho, xildhibaanada mucaaradka ee kasoo jeeda muqdisho oo cumar finish kala hadlaya maqaam u samaynta gobolka banaadir, duqayn ka dhacday gobolada jubbada dhexe iyo shabeellada hoose oo lala eegtay al-shabaab. intaasi waa qodobadii warka ee maanta. u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan. galcad media news. dowladda federaalka ayaa qarka u saaran in ay ka laabato heshiis 30 xildhibaan ah ugu ballan qaaday kooxda ahlu sunna wal jamaaca kadib walaac soo food saaray. warbaahinta galcad ayaa heshay xog sheegaysa in xukuumadda federaalka ay baqdin ka qabto saameynta 30 xildhibaan ee loo ballan qaaday ahlu sunna, waxaana ay baqdinta ugu badan ee ka jirta halka ay codkooda ku biiri doonaan maadaama ay loolan adag wajahayso doorashada galmudug. dowladda federaalka ayaa doonaysa inay ahlu sunna lacag ugu badasho 30 xildhibaan oo ay horey ugu ballan qaaday, isla markaana dowladda ay kala wareegto soo xulista xildhibaanada una dhiibto odayaal ayaga taageersan. ahlu sunna ayaa markii hore dalbatay in la siiyo 35 xildhibaan, waxaana dalabkoodii si weyn uga soo horjeestay ra-iisul wasaare xasan cali khayre, iyadoo markii dambe uu madaxweyne farmaajo arrinkani soo farageliyey, khayrana faray in ahlu sunna la siiyo 30 xildhibaan. ra-iisul wasaaraha ayaa fuliyey amarka madaxweyne farmaajo isagoo xilligaasi ku sugnaa Samareeb, balse hadda ayaa waxaa la sheegayaa in arrintu ay la xumaatay. hoggaanka ahlu sunna oo dhankooda doonaya inay saameyn siyaasadeed ay ku yeeshaan maamulka laga dhisi doono galmudug ayaa weli arrintaasi la hordhigin. ra-iisul wasaare khayre ayaa xoogga saari doono sidii uu musharaxa u wato ugu soo bixi lahaa doorashada galmudug, waxaana loolan adag uu kala kulmi doonaa xildhibaanada mucaaradka ah iyo xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. inta badan xildhibaanada mucaaradka iyo xisbigii xasan sheekh ayaa taageeraya musharax cabdiraxmaan odowaa oo ka shacbiyad badan musharaxa ay wadato xukuumadda nabad iyo nolol. dowladda ayaa hadda ka cabsi qabta in ahlu sunna ay heshiis la gasho mucaaradka kadibna soo xulaan madaxweyne aan ahayn kan ay wadato kooxda nabad iyo nolol. qarax miino ayaa lala egtay kolonyo ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle, kuwaasi oo maraya duleedka degmada balcad, islamarkaana sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. kolonyadani oo ay la socdeen mas-uuliyiintani ayaa ka yimid degmada balcad iyagoo kusii jeeday magaalada jowhar, waxaana qaraxa miino lagula eegtay aagaarka deegaanka gololey. wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxani uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka shabeellada dhexe cabdulaahi shitaawi iyo wasiirkii hore ganacsiga hirshabeelle sabriye cismaan. sidoo kale waxaa la sheegayaa inuu qaraxani ku dhintay xasan baldoos oo la shaqayn jiray mid ka mid ah hay-adaha samafal ee ka howlgala gobolka shabeellada dhexe. wadadan isku xirta jowhar iyo balcad ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhaya qaraxyada miinooyinka ee lala eeganaya gaadiidka ciidamada iyo kuwa mas-uuliyiinta. xarakada al-shabaab ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen barnaamij loogu qaybinayo lacago qoysas saboola ee ku nool magaalada muqdisho, caasimadda dalka soomaaliya, sida ay daabaceen warbaahinta taageerta al-shabaab. qaybinta lacagtan sakada ah ayaa waxaa goobjoog u ahaa gudoomiyaha ururka al-shabaab ee ugu magacaaban gobolka banaadir sheekh muuse cabdi caraale. ilaa iyo 150 qoys ayuu sheekh muuse in la siiyo $500 qoys waliba, degmo ka mid ah gobolka banaadir uusan magacaabin. sheekh muuse cabdi caraale ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka iyo ciidamada nabad ilaalinta amisom in ay dhibaato ku hayaan shacabka ku nool gobolka banaadir. ururka al-shabaab ayaa la sheegay in lacago canshuur ah ay ka qaadaan ganacsatada gobolka banaadir iyo deegaano kale oo ka mid ah dalka soomaaliya, iyadoo ay dakhli badan kasoo gasho lacagahaasi canshuurta ah. xildhibaanada mucaaradka ee kasoo jeeda muqdisho oo cumar finish kala hadlaya maqaam u samaynta gobolka banaadir
kulankani ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlaya arrimo kala duwan, waxaana uu u dhexeeyey gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya. kulankani waxaa ka soo qayb galay xildhibaan Cabdiqaadir Cusable Cali ahna gudoomiyaha xisbiga Ilays, xildhibaan Admiina Xasan Shibis iyo mas'uuliyiin kale, waxaana inta uu socday looga hadlay arrimo kala duwan. wararka laga helayo kulankani ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xildhibaanada ay ka wada hadleen sidii maqaam loogu sameyn lahaa gobolka Banaadir. sidoo kale mas'uuliyiinta kulankani ka soo qayb gashay ayaa gudoomiyaha Cumar Finish ugu hambaliyay mas'uuliyadda cusub ee loo dhiibay, isla markaana sheegay inay la shaqeyn doonaan. xildhibaan Cabdiqaadir Cusable Cali ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiinta sida weyn u horboodaya in maqaam u yeesho gobolka Banaadir, waxaana raadinta maqaamkani Muqdisho soo socotay muddo sanado badan. wararka ka imaanaya gobolada Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in xalay duqeyn xoog leh ay ka dhacday deegaano ka tirsan labadaasi gobol. dadka ku nool deegaanada Jilib iyo Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegay in xalay maqleen daryanka iyo duqeyn diyaareed oo ka kala dhacay gudaha iyo daafaha magaalooyinkaasi. duqeynta ka dhacday degmada Jilib ayaa waxaa la sheegayaa in lagu bartilmaameedsanayo guri ku yaala duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, halkaasi oo ay deganaayeen saraakiil ajaanib ah oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in duqeynta ka dhacday Jilib iyo Bu'aale bartilmaameedkooda uu ahaa horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab, iyagoona sheegay in lagu dilay 2 sargaal oo Kenyaan ah. sidoo kale saraakiisha u hadashay Soomaaliya ayaa sheegay in duqeymo kale isla xalay ay ka dhaceen xarun tababar ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose, mana la sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymahaasi. duqeynta gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa la sheegayaa in lagu bartilmaameedsanayo xero tababar Al-Shabaab ay ku leeyihiin inta u dhaxayso deegaanada Arabow iyo Hawaii ee gobolka Shabeellada Hoose. halkaas iyo inooga egaya warkayni maanta. intaa warkan warka xiga aan ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Galcad Media News.